بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين على أمور الدين والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo saaxiibaday hawshii dheerayd iyo dadaalkii dheeraa ee aanu ka soo hadlaynay maalmahan oo ay guud ahaan kasoo qaateen dad badan kasoo qayb qaateen dad badan oo reer Jubbaland iyo inta kale warqadda lagu xusayba. waxaan u maleynayaa waxaa muhiimadda ay ahayd heshiisku inta warqadda ku qoran. Jubbaland waxay ku soo aasaasantay dib u heshiisiin waxayna kaga duwan tahay deegaanada kale iyadoo ahayd meel dagaalka qabiilkuna dilooday ishaysadka iyo nooca deegaan qabiil ahaan loo degan yahay Soomaaliya ay dhibaatada ku ahayd oo la oran karo meel waxay ahayd kulminaysa mujtamaca Soomaaliya. taasaa markaa aad garanaysaan dhismihii ugu horreeyay Jubbaland markii la dhisayay inta ay nagu qaadatay dib u heshiisiintu iyo marxaladihii aan soo maray oo maanta inta mas-uuliyadda haysaay kulligood dib u heshiisiin ay ku yimaadeen. waxaan rabaa inaan ku baaqo oo aan sheego Jubbaland inay horeyna diyaar ugu ahayd dib u heshiisiin gogosha nabaduna ay furan tahay. ha noqdeen ciddii siyaasad wax ku tabanaysay, ha noqoto ciddii iyadu wax kale isku haysa, ha noqoto golaha saaxiibada igala joogeen iyo ha noqoto beelaha Soomaaliyeed ee sida warqadda ku xusan maalmahan khilaafku iyo dagaalku ka dhex jiray koonfurta magaalada Kismaayo inaan doonayno wax walba inaan xal iyo wada hadal ku dhammayno. waayo Soomaaliya waxaa la waayay qofka adkaada. qof kasta oo xoog isku dayay wuxuunbaa dhiman kara cilla tirtirayna ma jirto. Soomaaliya markaa dib u fiirisana wax kastoo la soo sameeyey waxay Soomaalidu dhaqan hore jirto waxaa layidhi qof waxaa ugu roon kugu san iyo kugu san. saaxiibaday mahadcelin kadib waxaan rabaa inaan u sheego waxaan u fadhinaa oon diyaar u nahay dib u heshiisiintii shalayna aan ay Jubbaland kusoo dhisantay waa qayb ka mid oo tani wax ka duwan maaha. qof walbana uma kala waad garan kartaan muddada hadda aan xilka haynay muddadii la ii dhaariyay ilaa hadda inta u dhaxaysa waqti dheer bay soo qaadatay. waxaan intaas u qancinayeen usugay waxay ahayd inaan helo warxal nabadeen wada hadal taasaan rabnaa inay ku dhammaato. waxaa kaloon rabaa inaan ku daro waxaan soo dhaweynaynaa qof kasta oo wax naga dhexeeyaan iban dowladda federaalka horey baan ugu baaqnay waxaan ku nidhahan wada hadal baan diyaar u nahay inay qaataan mas-uuliyadda saaran ee waalidnimo oo ay gartaan xilka saaran waxa uu yahay. taasaana waxay caddaynaysaa qofku mas-uuliyadda saaran markuu garto markaasuu wuxuu raadin karaa xalka iyo nabad iyo midaas. dowladda federaalkii ha ku soo dhawaato wada hadal iyadiyo dowlad goboleedyada iyadiyo Jubbaland waxa ka tirsanayso waxa Soomaalida maanta dhex yaala kulli intaasoo dhan waxay u baahan tahay in xal laga gaaro. waxaasoo dhan kulligeed xalka la gaari karana waa xal wada hadal lagu gaari kara xal siyaasadeed wada hadal bayna wax ku dhammaan karaan. waxaan intaa ku darayaa ilaahay hanaga hayo cudur baa jira aada u dhib badan oo caabuqa corona lagu tilmaamayo. dadka Soomaalidu way ka madax adag yihiin dadka kale waxayna mar walba ka hadlayaan war ilaahay baan leenahay iyo qadar bay waxaana ku xiran tahay iyo sidan ma yeelayna iyo adeer rasuulku waa kii lahaa ratigaagana xidho ilaahaygana tala saaro. awrka dabar oo intaad seetaysato ilaahayna tala saara markaas siida laakiin awrkii iska soco ilaahay baan tala saarayna soo noqdo sax ma noqonayso. dadku ha u hoggaansameen talooyinka dadka aqoonta u leh ay ka hadlayaan. fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun. maanta haddaan anigu caabuqa ka hadlo wax badan ana macluumaada kama bixin karayo laakiin maxaan ku qasbanahay dadka yaqaana ee wax ka sheegaya waa inaan ka qaato. waa cilmi in la qaato wey. Soomaalidu ha u hoggaansanto talooyinka iyo wacyigelinta laga siinayo cudurkaasoo ha isku dayeen inayna dhibaato kale ayna dadka usii geysan oo qofkii isaga xal laga gaari lahaa inuuna intaasoo qof intuu fidmay maanta nuclear ma dilo dadka maanta ku dhintay. maraykankii sheeganayay wax walba inuu haysto yaad arkaysaan maalintii 2,000 ay dhimanayso. arrintaasi dadka Soomaalidu bil Ramadaanna waan ku jiraa inuu ilaahay baryayno bil Ramadaan ba beri bilanaysa oo ilaahay baryayno
haddana waa inaan qaadano talooyinka oo cibaadada iyo meesha la fadhiisanayo iyo waxa la qabanayo iyo sida la yeelayo wax walba ha lagu saleeyo talada dadka dhexaysa. ilaahayna cudurka haynaga hayo bishan bisheedana ilaahay haynagu gaarsiiya barbar iyo barwaaqo. dadka reer Jubbalandna waxaan leeyahay midnimo iyo gacan isu qabsi yaa wax lagu qaban karaa, nina keliya waxa ma qaban karo. maanta haddii aniga horteeda laga leexdo oo leeyahay raxmada orod socdo kaasi waxaad qabanaysa qabo, waxaan qaban karaa ma jiro haddayna jirin midnimo wada socod iyo gacmaha la haysto. intaas xal lagu gaari kara. saaxiibadayna waxaan leeyahay xildhibaanka iyo raggii aan duurka isla soo joognay soo dhawaada. marka hore ma aan ka maqnayn barnaamijkan hore aan usii gallo waqtigii ina soo dhaafayna aan ilaahno shaydaan iyo waxay ka ahaatay wixii maanta inoo dambeeyana qalbigeenana aan isu furno. dadkeenuna wayna sugayaan. waxaad ogaataan kullamaa khilaaf dhaco dadka ku dib dhacaya waa dadka danleyda iyo masaakiinta iyo dadka aan waxba galabsanin baa dhibaato kastoo dhacda iyada iyaga ugu horumartaa. aanu turno dadkaas markaa. aad baad umahadsantihiin saaxiibaday gabanaha iyo maxamuud sayid iyo kulligiin aad baan idiin wada salaamaya. khayr badanna waa idiin rajaynaya. assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.